aniga mar walbo oo arrintu igu cuslaato xaqiiqadu waxay tahay sheekada mar walbo oo arrintu igu cuslaato niyadan ku dhistaa bini aadam baan nahay marar badan waxa ku soo mari karto nolosha ay kugu yara adkaato mar walba nolosha ugu adkaato sheekadan aniga saameyn ay igu leedahay oo niyada ayaan ku dhistaa bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha khiyaarta asxaabtaan jeclahay ee janalkaygan waana ku xiran walaalayaal soo dhawaada walaalahay waa cusub soo dhaweynayaa sidoo kale walaalaha igala socda Facebook page-kii TikTok aan leeyahay soo dhawaada laba sheeko maanta idin wadaa labadaas sheeko oo ah sheeko ay xigmad ku jiraan sheekadan sheekooyinkan mid kamid ah aniga mar walbo oo arrintu igu cuslaato xaqiiqadu waxay tahay sheekadan mar walbo oo arrintu igu cuslaato niyadan ku dhistaa bini aadam baan nahay marar badan waxa ku soo mari karto nolosha ay kugu yara adkaato mar walba nolosha ugu adkaato sheekadan aniga saameyn ay igu leedahay oo niyada ayaan ku dhistaa sheekadaasaan ku bilaabeynaa tan kalena gadaalan ka sheegi doonaa insha allah sheekadaas marka waxa weeyaan waxaa soo safray wiil iyo aabihi markii ay dariiq soo marayeen baa waxaa lugta wax ka gaareen dameerkoodii iyo alaabta ku wateen aabihii baa soo booday wuxuu yiri ilaahay wuxuu naga hayo ayaa ka weyn way socdeen cabaar bay socdeen maadaama dameerkii ay dhibaato gaartay alaabtii wadaadkii ama aabihii ayaa alaabtii dusha saartay oo soo qaaday aabihii baa marka haddana lugti ka murgacday ama lugti murgacsho cidii aan garanaynin aan wax kale aan ku dhaw Soomaali ma garanayo laakiin aabihii baa ay way lugti wax ka gaareen haddana markii lugti wax ka gaareen markaasuu oday wuxuu yiri ilaahay wuxuu naga hayo ayaa ka weyn haddana waa la socday inta haddana la sii socday baa haddana wiilkii meel baa la fayra fariistay oo lagu nastay meeshii baa waxaas timid abeeso oo wiilkii taa lugta ka qaniintay odayga markuu wuxuu yiri hadalkiisa caadada waxa uu yiri ilaahay wuxuu naga hayo ayaa ka weyn wiilkii yarkaa markuu carooday aad buu xanaaqo wuxuu yiri ilaahay wuxuu naga hayada aad sheegaysid matan baa buu yiri meen aniga abeesadu qaniintaa markaasuu odaygu hadal kale ma oran wuxuu yiri ilaahay wuxuu naga hayo ayaa ka weyn waa la socday magaaladii baa la tagay magaaladii marka waxaa la tagay magaaladii oo dhul gariir uu ka dhacay oo burburtay oo dhibaato ka dhacday oo dadkuna ku dhibaatoodeen markaasuu oday wiilkiisa eegay wiilkiina dabcan wuu gartay aabihii kelmadaasi waxa uu ka waday waxa uu ku yiri marka soo kuuma oran ilaahay wuxuu naga hayo ayaa ka weyn ilaahay wuxuu naga hayay inaan magaaladan imaano oo anagana dadkaas dhibaatada ku dhacdo kale nagu dhacdo ilaahay wuuna dib dhigay dameerkii baa lugta ka gaareen aniga baa lugta ka gaareen adigii baa bees ku qaniintay intaas oo dhan markii la isku dardaro soo kama weyno tuu ilaahay naga hayay oo ah in magaaladaas dadka lagu halaagay aan ku darsanin aniga kullee sheekadaas mar walbo arrin ugu cuslaado niyada ayaan ku dhistaa ilaahay wuxuu naga hayo ayaa ka weyn waan run ilaahay waxa hadda ku haysta waxa uu ka hayaa ka weyn xaqiiqo weeyaan waxyaabo badan oo ilaahay waxa jiro uu naga hayo subxaanahu wa tacaala marka qisadan waxay sheekadan yarta ah waxayna dareensiinaysaa mar walbo arrin kugu cuslaado ogow ilaahay wuxuu ka hayaa ka weyn mar walbo arrin kugu cuslaado niyada ku hay ilaahay wuxuu ka hayo ayaa ka weyn tan labaad aan gudubno tan labaadna wiil yar baa wuxuu arkay aabihii mar walba aabihii quraanku akhriyaa laakiin aabihii quraanka waxba kama xifdisano markaas wuxuu ku yiri muxuu ka anfacayaa buu yiri quraankan aad akhrinaysid oo aadan suuradna ka xifdisaneen markooda wuxuu damcay inuu wiilkiisa cashir siiyo cashirkaas oo welibana ah itusoo itaabsi wiilkii wuxuu u dhiibay dambiil ama salad oo welibana saladaasoo aan ahayn salad yacnihi xajmi leh oo wax celinayso yacni waa salad waa iska garanaysaa salad cidii aan garanayn aniga kullab salada u aqaanaa salad waxaa la dhahaa baashan lagu soo adeegto ee Soomaaliya islaamuhu markay suuqa aadeen ay ku soo adeegtaan taasi salad la dhahaa taasuu u dhiibay wuxuu marka ugu shubay uxul wuxuu yiri ina kaxee way soo baxeen waxay yimaadeen meel biyo ku jiraan ama webi ama bad ama waxay doontaba ahaatee wuxuu ku yiri dambiishan ama saladan buuxi oo biyo ka buuxi welibana iikeen intuu meeshii banaankeeda fariistay markaasuu wiilkii meeshii buu kala biyaha ku jireen wuu kusoo shubaa biyihii buu ka buuxiyaa wuu la soo cararaa biyuu ula yimaadaa mise biyihii xabadna kuma jiro marka wuxuu yiri aabiyo wuxuu ku marka hore wuxuu aabiyo wuxuu ku yiri macquul ma ahan inaan saladan biyo kugu keeno markaas wuxuu yiri isku day wuu tagay wiilkii markii waad isku day labaad isku day saddexaad afraad ilaa muddo wada
markuu waday wuxuu yiri aabba suurtagal ma ahan horaan kugu sheegay inaan dambiishan biyo kugu keeno ee maxaa dhacay markaas wuxuu yiri haddaba dambiisha buu yiri ama salada wax yacni isbedel ah ma ka dareentay markaasuu wiilkii markaasuu baraarugu eeg wuxuu yiri markaan soo qaadeynay buu yiri wuxuusha madowgeedii baa ku taalay buu yiri laakiin hadda nadiif bay noqotay buu yiri markaasuu yiri haddaba qur-aanku buu yiri sida dambiishaas ee dhuxushu ka buuxdo ee biyaha markaad dhowr mar ku shubtay ay uga nadiif noqotay buu qur-aankuna qalbiyadeena u nadiifinayaan xitaa haddaad doontid dambiishu biyo qaade biyo ma qaadin laakiin waxaa nadiifiyey oo dhaqay dhuxusha wasaqdeeda ka dhaqay biyaha ahadba ku shubaysay qur-aankuna sidaasoo kale qalbigu u yahay adduunyada iyo mashaakisheeda buu yiri iyo dhibaatooyinkeeda iyo dunuubteedu waxa ay wasaqeeyaan qalbiyada qur-aankuna wasaqdaas ayuu qalbigaaga ka nadiifinayaa hadda wuxuu yiri waxaan rajeynayaa inaad fahantay sababtan qur-aanka u aqriyo anigoo aanan suuradna ha noqotay waxba ka xifdisanayn kana asxaabay haddii ay jiraan qaar idin ka mid ah oo isleh qur-aanka maba xifdisanide maxaa ka akhrinaysaa inay odaygaas iyo wiilkaas yarkaay dambi salada uu dhiibay sida ay u nadiifiyeen biyuhu inaad cashar ka qaadateen aadna fahanteen inuu qur-aanku sidaasoo kale qalbigeena insha allah u nadiifin doono fiidiyowga intaasuu ku egyahay waa rajeynayaa labada sheeke yaryar inaad wax ka faa'iideen waa mahadsantihiin waxaa ku mahadsantihiin daawashadiina sida qurux badan layla socotaan insha allah fiidiyowga xigintaan kulmeen waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu